السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال kusoo dhawaada mar kale iyo channelkeeni Monomad maanta waxaan idin haynaa qaybta saddexaad ee taxanihii dagaalka labaad ee adduunka waa qayb kooban oo aad kaga bogan doonto waxyaabo badan oo dhacay intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunku daawasho wacan furintii badweynta Pacifica 1941 ilaa 1943 iyadoo Britain ay dagaal ku wajahayso Jarmalka gudaha qaaradda Yurub Mareykanku wuxuu ahaa qaranka kaliya ee awood u leh inuu ka dagaalamo gardarrada Japan iyagoo dabayaaqadii 1941 qorshahooda ku daray ballaarinta dagaalka ay kula jiraan Shiinaha iyo qabsashada hantida gumeystaha Yurub ee bariga fog. Taariikhdu markay ku beegnayd 7 bishii 12aad 1941 360 diyaaradood oo ciidamadii Japan ah ayaa weeraray saldhigga ugu weyn ee ciidamada badda ee Mareykanka ee Pearl Harbor ee Hawaii isagoo weerarkan noqday mid ay ka yaabeen Mareykanku sidoo kalena galaaftay nolosha in ka badan 2300 oo askartii Mareykanka ka mid ah. Weerarkii Pearl Harbor wuxuu suurtageliyay inuu mideeyo ra'yiga dadweynaha Mareykanka waxayna ku qasabtay Mareykanku inuu ka qayb galo dagaalkii labaad ee adduunka. Isla bishii 12 Kongareeska Mareykanka wuxuu ku dhawaaqay dagaal ka dhana Japan hal cod oo diidma mooyee dhammaan intii kale ee xubnihii Kongareesku waxay u codeeyeen in Mareykanku ka qayb galo dagaalka labaad ee adduunka. Kadib go'aan ka soo baxay dawladda Mareykanka, Jarmalka iyo xulafadiisii Axis Powerska ay ka mid ahaayeen Japan iyo Italy waxay isla markiiba ku dhawaaqeen dagaal ka dhana Mareykanka. Kadib guulo badan oo isku xigay oo uu gaaray ciidanka dalka Japan, ciidankii badda Pacific ee Mareykanka ayaa ku guuleystay dagaalkii la magac baxay Battle of Midway bishii 6aad ee sanadkii 1942. Guushan ciidanka Mareykanku gaadhay ayaa dagaalkii weji kale u yeeshay. Dhinaca Guadalcanal oo ah koonfurta mid ka mid ah jasiiradaha Solomon ee badweynta Pacifica, xulafadii ay horkacayeen Mareykanka iyo Ingiriisku waxay guulo ka gaadheen dagaalo xidhiidh ah oo ay la galeen ciidamadii Japan. Dagaaladan ayaa bilowday bishii 8aad 1942 socdayna ilaa bishii 2aad sanadkii 1943. Taariikhdu markay ku beegnayd bartamihii sanadkii 1943 ciidamada badda ee xulafadii Mareykanku hogaaminayay waxay bilaabeen weeraro rogaal celis ah oo ka dhana Japan kuwaas oo weeraro isdaba joog ah ku qaadeen jasiiradaha muhiimka ah ee Japanku haysto ee Pacifica. Istiraatiijiyadan lagu weeraray jasiiradihii uu Japanku haystay ayaa noqotay mid lagu guuleystay. Ciidamadii huwanta uu Mareykanku hogaaminayay waxay u soo dhawaadeen hadafkoodii ugu dambeeyay ee ahaa inay ku duulaan dhulweynaha Japan. Guushii isbahaysiga ee dagaalkii labaad ee adduunka 1943 ilaa 1945 waqooyiga Afrika sanadku markuu ahaa 1943 ciidamada Ingiriiska iyo Mareykanku waxay dagaal kaga adkaadeen Talyaaniga iyo Jarmalka. Intaasi waxaa sii raacay in xulafadii Mareykanka iyo Ingiriisku ay qabsadeen jasiiradii Seychelles. Intaasi kadib dawladdii Mussolini ayaa dhacday bishii 7aad ee 1943 inkastoo ciidamada huwanta Mareykanka iyo Ingiriisku ay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan ciidamada Jarmalka iyo Talyaaniga waxaana dagaalku socon doonaa ilaa 1945. Dhanka bariga weerarka hortaga oo ay sameeyeen ciidamadii Soofiyeedka ayaa bilaabmay bishii 11aad 1942 sidaasna weerarkani wuxuu soo afjaray dagaalkii la magac baxay Battle of Stalingrad. Dagaalkan ayaa mid ka mid ah iska horimaadyadii ugu xumaa ee dagaalkii labaad ee adduunka. Jilaalkii oo soo dhawaaday oo ay weheliso cunnada iyo sahayda caafimaadka oo sii yaraanaysa ayaa soo afjartay ciidamadii Jarmalka ee halkaas joogay. ugu dambeyntiina waxay ciidamadii Jarmalku isdhiibeen taariikhdu markay ahayd 31 bishii 1aad ee sanadkii 1943. 6 bishii 6aad 1944 waxaa loo dabaaldegay maalinta la magac baxday D-Day. Ciidamadii huwanta ee Mareykanka iyo Ingiriisku hogaaminayeenna waxay bilaabeen duulaan ballaadhan oo ay ku qabsanayaan qaaradda Yurub. 156,000 oo askar British, Canadian iyo American ayaa ka soo degay xeebaha Normandy ee dalka Faransiiska. Adolf Hitler hogaamiyihii mayalkaadka
ayaa isagoo ka jawaabaya duulaanka soo cusboonaaday ee ciidamada xoogga badani kaga soo degeen xeebaha Faransiiska, waxa uu dhammaan intii ka hadhay ciidankiisa ku shubay galbeedka Yurub, isagoo xoojinaya jiidda bari oo ciidankii Jarmalku guuldarro kala kulmeen. Ciidamada Soofiyeedka ayaa si degdeg ah u soo galay Poland, Czechoslovakia, Hungary iyo Romania, halka Hitler uu soo ururiyay ciidamadiisa si uu Mareykanka iyo Ingiriiska uga soo celiyo Jarmalka dagaalkii la magac baxay Bulge oo bilaabmay bishii 12aad sanadkii 1944 socdayna ilaa bishii 1aad ee 1945. Dagaalkan ayaa noqday weerarkii ugu dambeeyay ee ciidanka Jarmalku galaan intii uu socday dagaalkii labaad ee dunidu. Bishii labaad 1945 duqeymo xoogan oo xagga hawada ah ayaa ay ciidamadii hubantu la beegsadeen dhulweynihii Jarmalka inta aanay qabsan ka hor. Kadib duqeymahan, taariikhdu markay ahayd 8 bishii shanaad, ciidanka Jarmalka ayaa si rasmi ah isu dhiibay. Ciidamadii Soofiyeedkuna sidaasi ayay ku qabsadeen inta badan dhulweynihii Jarmalka. Waqtigan ay ciidanka Soofiyeedku qabsanayaan dhulka Jarmalka, hogaamiyihii mayalka adkaa ee Adolf Hitler ma aha mid nool ee waa uu dhintay, isaga ayaana gacantiisa isku dilay. Taariikhdu markay ahayd 30 bishii afraad isla sanadkaasi ee 1945. Dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka 1945. Shirkii Potsdam ee socday bishii 7aad ilaa bishii 8aad sanadkii 1945. Madaxweynaha Mareykanka Harry S. Truman, kaasoo xafiiska qabtay kadib dhimashadii Roosevelt, Churchillkii ra'iisul wasaaraha ka ahaa Ingiriiska, iyo Joseph Stalin kii dhalasho ahaan ka soo jeeday Georgia laakiin ahaa hogaamiyihii Midowga Sofiyeeti, waxay ka wada hadleen dagaalka socda ay kula jiraan dalka Japan iyo sidoo kale sidii nabad looga dhalin lahaa dalka Jarmalka. Dagaalka labaad ee adduunka kadib, Jarmalka waxaa loo kala qaybiyay 4 aag oo la haysto si ay u maamulaan Midowga Sofiyeeti, Ingiriiska, Mareykanka iyo Faransiisku. Arrintii kala qaybsiga wadamadii bariga Yurub, Churchillkii Ingiriiska iyo Trumankii Mareykanku waxay aqbaleen rabitaankii Stalinkii Soofiyeedka ee ahaa inuu isagu keligii haysto bariga Yurub. Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa Stalin u oggolaaday maadaama ay u baahnaayeen iskaashiga Soofiyeedka ee dagaalka ka dhanka ah Japan. Taariikhdu markay ahayd 1945, bishii labaad ilaa bishii 6aad waxaa dhacay 2 weerar oo ay isaga hor yimaadeen ciidankii Japan iyo kuwii Mareykanku. Weeraradan ayaa dhaliyay khasaare aad u badan, waxayna sii siyaadiyeen weeraradani cabsidii laga qabay in ciidanka Japan ay qabsadaan dhul hor leh, waxayna cabsidani horseeday Trumankii horkacayay Mareykanku inuu oggolaado isticmaalka hub cusub oo si ba'an wax u gumaadi kara. Intii dagaalku socday, waxaa jiray mashruuc weyn oo si sir ah hoosta uga socday, kaasi oo la magac baxay The Manhattan Project, waxaana qorshahan daaha lagaga fayday hubka noociisu aan dunida cidina hore u haysan ee atomic bombka ama waxa loo yaqaano nuclearka. Bilowgii bishii 8aad sanadkii 1945, hubkii atomic bombka ama nuclearka ayaa dowladdii Mareykanka ku duuqeeyeen magaalooyinkii Japan ee Hiroshima iyo Nagasaki. Dhinaca kale, 15 bishii 8aad ee isla sanadkaasi, dowladdii Japan waxay soo saartay bayaan ay ku cadaynayso inay oggolaatay qodobadii ka soo baxay mashruucii la magac baxay Potsdam Declaration. Potsdam Declaration wuxuu ahaa shir ay qodobo ka soo saareen Mareykanka, Ingiriiska iyo China bishii 7aad ee sanadkii 1945, iyagoo ciidankii iyo dowladdii Japan ka dalbanaya inay si shuruud la'aan isu dhiibaan. Sidaasina, dowladdii Japanku waxay bishii 8aad oggolaatay inay isdhiibaan. Bishaa xigtay ee 9aadna generaalkii ugu sarreeyay ciidanka Mareykanka ayaa aqbalay isdhiibitaanka ciidanka Japan. Intii dagaalka labaad socday, waxaa jiray ciidamo madow ah ama African American ah kuwaas oo u dagaalamay dowladdii Mareykanka. Dagaalkii labaad ee adduunku waxa uu daaha ka fayday khalkhal muuqda oo ka dhex jira ciidanka Mareykanka. Inkastoo in ka badan 1 milyan oo African American ay u adeegeen Mareykanka,
si ay uga adkaadaan naasiyiinta iyo fashiistaha. Siyaasadihii Jim Crow ee takoorka ahaa ee ku dhex faafay bulshada Maraykanka ayaa waxaa sii xoojiyey militariga Maraykanka. Askarta madowga ee ka qayb qaadanayay dagaalka labaad marar dhif ah ayay arkayeen dagaal, waxaana inta badan loo celceliyey ama lagu hayay qaybaha shaqada iyo saadka oo ay amarka lahaayeen saraakiisha caddaanka ah. Waxaa jiray dhowr cutub oo African American ah kuwaasoo caddeeyey inay lagama maarmaan u ahaayeen caawintii guushii dagaalkii labaad ee adduunka ay ka gaadheen ciidanka Maraykanku. Dhinaca kolonyooyinkii xamuulka ugu badnaa, dareewaladii madowga ahaa ayaa mas'uul ka ahaa gaadhsiinta alaabta muhiimka ah ciidamada jiidda hore ee Faransiiska. Guutada 761 oo ahaa ciidamadii taangiyada ahaana ciidamo madow ah ayaa sidoo kale ka dagaalamay dagaalkii Bulge. Sidoo kale qaybta 29aad ee ciidanka lugta oo iyaguna ahaa ciidamo madow ah waxay dagaal dhulka ah ku qaadeen Talyaaniga. Hase yeeshee, inkastoo ay ciidamadii madowgu door weyn ku lahaayeen jabinta fashiistaha kadib dagaalkii labaad ee adduunka, askarta Afrikaanka ah waxay sii wadeen dagaalka ay ugu jiraan sidii ay sinaan ku heli lahaayeen. Markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunku, askartii madowga ahayd ee Maraykanka waxaa lagu reebay cutubyada qaar, waxaana looga dhiibay jagooyin ama xilal hoose. Khasaarihii laga dhaxlay dagaalkii labaad ee adduunka. Dagaalkii labaad ee adduunku wuxuu caddeeyey inuu ahaa iska horimaadkii caalamiga ahaa ee ugu dhimashada badnaa taariikhda, kaasoo galaaftay nolosha 60 ilaa 80 milyan oo qof, oo ay ku jiraan 6 milyan oo Yuhuud ah oo ku dhintay gacmaha naasiyiinta xilligii Holocaust ee xeryaha dagaalka lagu xasuuqayay Yuhuudda. Dadka rayidka ah ayaa lagu qiyaasay 50 ilaa 55 milyan inay ku dhinteen dagaalkii labaad ee adduunka. Dhinaca militariga, 21 ilaa 25 milyan oo askari ayaa nafahooda ku waayay dagaalka. Malaayiin kale oo ka mid ah ciidamadii ka qayb qaatay dagaalka ayaa iyaguna sidoo kale ku dhaawacmay. Kuwo badan oo kale oo ciidanka ka mid ahaana waxay ku waayeen guryahoodii iyo hantidoodii. Dhaxalka dagaalkani waxaa kaloo ka mid ahaa faafitaanka shuuciyaddii midowga Sofiyeeti ay ku faaftay bariga Yurub iyo sidoo kale guushii ay Sofiyeetku ka gaadheen Shiinaha. Waxyaabihii uu dhaxal ahaan uga tegay dagaalkii labaad ee adduunku waxaa sidoo kale ka mid ahaa awooddii caalamiga ahayd ee dunida oo ka soo wareegtay reer Yurub una soo wareegtay labada dhinac ee dunida markaasi ka noqday Global Superpowers, waa Maraykanka iyo midowga Sofiyeeti, oo dhowaan iyagu fooda isku dari doona dagaalkii la magac baxay The Cold War ama dagaalkii qaboobaa. Intaasi waxaynu ku soo afmeeraynaa qaybtii 3aad ee taxanihii taariikhdii dagaalkii labaad ee adduunka. Haddii aad channelkeena More Nomad ku cusub tahay, fadlan ha ilaawin inaad subscribe saarto gambaleelkana furato si aad u hesho dhammaan muuqaalada aan soo gelin doono. Haddii aad asxaabteennii More Nomad ka mid tahayna, sidoo kale ha ilaawin sheerta, like-ta iyo inaad commentiga nagula wadaagto wixii su'aal ama aragti aad qabto. Mahadsanid.